maanta taariikhda ay tahay 8 bishii October 2019 waxaan halkan ka bilownay qorista ciidanka booliiska cusub taasoo daba joogto ogolaashihii uu bixiyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed warqadii taariikhdeeda ay ahayd 2 October 2019 ee laga baafiyay raadiyaha qaranka. xaqiiqdii waxaan rabaa oo kaliya inaan maanta aan la wadaago dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed inta danaynayso inay ku soo biirto ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama ay ka qayb qaadato horumarinta geedi socodka nabadda lagu soo dabaalayo dalka Soomaaliyeed. talaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed asagoo fulinayo talooyinka iyo tusaalaha qaranka madaxda sare qaranka taliyaha ciidanka booliiska wuxuu go'aansaday in la qaato ardayda ka soo baxday dugsiyada sare haystana shahaadooyinka dugsiyada sare ee la xaqiijiyay iyo ardayda haysato waxbarashada dugsiyada sare wax u dhigmo markaan leenahay meelis macnaheedu waxay noqonaysaa ardayga haysto diploma experience shaqo meel kala gedisan kuna darsaday muuqaalka fiican ee laga rabo askariga booliiska cusub inuu noqdo waa qaadanayna marka shuruudeena kuma xirro oo kaliya in hoosta laga xariiqa qofka inuu haysto shahaadada dugsiga sare laakiin shahaadada dugsiga sare iyo wixii uu dhigmo waa qaadanayna sida la socotaanba halkan maanta aan joogno waa akademiyada booliiska General Kahi xafiiskan ayaa waxa laga loo furay dhalinyarada cusub ee ku soo biirayso ciidanka booliiska Soomaaliyeed in halkan laga fududeeyo howlahooda. xafiiskan wuxuu furanayaa marka laga reebo maalinta Jimcaha 6 maalmood kala asbuuco 8 aroornimo ilaa iyo 16 galabnimo ama 10 saac oo galabnimo wuu furanayaa. waxaana diyaar ku ah saraakiil aqoon iyo xirfad u leh xulashada iyo ka jawaabista baahiyaha gaarka ay qabaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku soo biirayso ciidanka si ay u xulaan shuruudaha looga baahan yahay ayadoo oo ay jirin wax xawiratee kala sooc ah ee qofku uu ku heri karo kuna ugu soo biiri karo kuna heri karo oo kali ay tahay waxyaabaha looga baahan yahay. fursaddan waxay u furan tahay oon rabaa dadka inaan gaarsiiyo cod dheerna ku gaarsiiyo in ay u furan tahay 18 gobol ee Soomaaliya ma ahan Muqdisho ma aha koonfurta Muqdisho ma ahan maamul goboleed gooni ah jamhuuriyadda 18 gobol ee Soomaaliya raas caseer iyo raas kaamboon inta u dhaxayso way u furan tahay fursaddan. shuruudaha qofka looga baahan yahay inuu shahaado haysto iyo inuu wax u dhigmo kaysado damaanad cad oo ku filan oo aad loo xaqiijinayo damaanadaas oo ah qof booliiska ay aamini karaan Britain ay u dabageli karaan wixii ku soo baxa qofku asiga shaqada keenay ma oranayno nabadoon kaligiis ma oranayno madax dhaqameed kaligiis ma oranayno sarkaal kaligiis ma dhe laakiin marka laga reebo xildhibaanadeena qaranka sida senatoorada iyo xildhibaanada wasiirada marka laga reebo dhammaan hay'adaha kala dawladda ma adkaynayno because waxaan baahi badan u qabnaa inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku soo biiraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed in ay qaataan fursadda shaqo ee dalkooda ay ka heleen. dadka maalmahan waxaan rabaa dib inaan u noqdo maalmahan aniga dadka inta badan Facebook la xiriiro oo kumantisada fiiriyaan kamid ah markii warqadan la geliyay raadiyo Muqdisho Facebook-yada la soo dhigay kumantis fara badan baa laga bixiyay kumantisadaasi wax badan oo nasaacidaan way jireen wax badan oo jaalad gareynayna way jireen marka waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo kulan jaalad gareynay kuwa anaga na support gareeyay way maasan yihiin kuwa jaalad gareynay way maasan laakiin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ardayga ka soo baxay dugsiga sare inuu ku biiro ciidanka booliiska Soomaaliyeed yes waa soo dhaweynayna in darajo la siiyo u qalanta aqoonta 12 sano wax soo baranay waxay ku xiran tahay dhamaadka tababarka
iyo shaqada marka oo bilaabo wuxuu la soo baxo oo liimaadi ku xiran tahay wuxuu asiga keensado oo ka mutaysto shaqada booliiska iyo adeegada bulshada Soomaaliyeed ayay ku xiran tahay promotion ama dalcaad laga ma bixin karo meel cidla ah booliiskana wuxuu leeyahay nidaam iyo kala dambeyn iyo shuruuc la ilaalinayo sidaas awgeed darajada ayadoo bixaysa laakiin waxay ku bixaysaa sharci ku bixaysaa ardayga mutaysto shahaadada dugsiga haysto ku darsado kartay iyo aaminimo iyo mataqaanaa wanaag iyo firfircooni iyo muuqaal iyo caafimaad qab iyo qalbi wanaagsan shaqada la soo galo yes waxay ku xiran tahay talihiisa barboosirka soo qoro ama macallimiinta tababarka gacanta ku haysa dhammaadka tababarka waxaa suurtagal in la yidhaahdo tirada intaan la eg waxay u qalantaa in la dalacsiiyo tirada intaan la eg inay sidoo ahaadaan oo lagu qaato dabla buuxdo marka wax dhibla ma aha sambal wax oo dhibla ma ahan in la qaatana dambe ma ahan in la dhaafana dambe laakiin dadka waxaan khiyaar gelinaynaa waxaan rabnaa inaan caddayno oo dadka aan ku khiyaar gelinaynaa kusoo biirista ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa nin iyo ikhtiyaarkiis qof la qasbaa ma jiro qof kasta arday kasta oo dugsi sare haysto ama shahaado u dhiganta haysto ama way aragnimo u dhiganta haysto oo kusoo biir ciidanka booliiska marka uu kusoo biiro sida ku qoran shuruudda taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu soo saxiixay waxaa loo aqoonsanayaa markuu akademiyada galo uu shuruudaha buuxiyo leyla dabla tababar buu galayaa tababarka dhammaadka markuu guulaysto la sameeyo xafladda qalinjabinta waxaa loo aqoonsanayaa dable buuxo ciidanka booliiska wuxuuna yeelanayaa dhammaan xuquuqda ciidanka booliiska Soomaaliyeed uu yeelanayo ayuu yeelanayaa ciddii la timaada wanaag iyo horumar inta tababarka oo socdana waxay ku xiran tahay madaxda gacanta ku haysa macallimiinta maamulayso waxay ka soo bixiyaan ma doonayo inaan ka hor dhaco laakiin waxaan rabaa bis inaan daaha ka qaado qof walba wuxuu shaqaysto inuu helaayo in fursadda loo siman yahay dhammaan gobollada inay kasoo qayb geli karaan waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ka iftiimiyo marka aan 5 cisho raadiyo Muqdisho labadii bish markay galeen 5 cisho aan qabsanay 5 cisho ma ahan qorista ku dhamaanayso ogeysiiska la bixinay ahayd laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan sheegaynaa 14 days oo hadda naga dambayso fursadaan siinayna anoo ku hadlay afka taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo taliya-xigeenada ee kaygaba waxaan rabaa inaan adiga qiijiyo 14 cisho oo maanta ka dambayso fursaddan way idin furan tahay qofkii gobolka imaanana waa ka soo gaari karaa qofkii dalalka dariska imaanana waa ka soo gaari karaa qofkii xamar joogana waa ka soo gaari karaa waa fursad ay u sameeyeen ma doonayno in la yiraahdo waqtiga ayaa nagula cariiray xilligii la sheegay waqtigu uu gaabnaay waxaa loo faa'iideynay dad gaar in la yiraahdo marno waxaan codsanaynaa inaan dhaliil iska sheegin ceeb la iska sheegin fursaddaas waa loo sameeyaa in laga soo qayb galo insha Allah ilaahay idinkiis waxaan lagu shaqeynayaa xafiiska General Kahi akademiyada booliiska General Kahi ex school booliisi oo ku yaalo degmada Xamar Jajab kuna dhow takada weyn ee Muqdisho dadkan aqoonna rabaa saasan aan ugu sheego waad maasantiin shirkeena jira inta soo ku saabsanay